qoyskani oo doonayay inay dib u midoobaan kadib sannado fara badan oo ay kala maqnaayeen ayaa markii Bintow sii aadaadan iyo labadeeda carruurta ahi ay cagaha soo dhigeen ciidda Ameerika intii aanayba ka soo bixin gegida diyuuradaha Dallas ee magaalada tan Washington waxay noqdeen Soomaalidii ugu horreysay ee dhibanayaal u noqota go'aankii uu madaxweynaha cusub ee Mareykanku soo gelidda dalkiisa kaga joojiyay dadka u dhashay 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. saraakiisha waaxda socdaalka ee garoonka Dallas ee magaalada Washington waxa ay ku wargeliyeen aabaha qoyskan oo isagu gobolka Minnesota ku noolaa in reerkiisa dib loogu celinayo halkii ay ka yimaadeen oo ah dalka Kenya maadaama qaxootiga iyo muwaadiniinta dalalkaasi 7 ah loo diiday in ay Mareykanka soo galaan. shakhsiyan go'aanka aad bii saameeyay waliba kharash aad u fara badan oo aad u culus ayaa iga baxay waayo ilaa ugu yaraan 3 tigidh baan iga kansalantay ilaa haddana 7 boorso oo lacag ugu yaraan 5,000 ay iga baxday baan la ayay oo gacan bukayn. inkastoo ku dhawaad 15 saacadood ay ku xanibnaayeen gudaha garoonka iyagoo markii horena 14 saac oo xiriir diyaarad soo saaraa ayaa ugu dambeyntii waxaa loo ogolaaday inay dalkan gudaha u soo galaan go'aankaas oo daalkii safarka iyo diiftii soo jeedkaba ka bixiyay. maantana aad baan u faraxsanahay laga bilaabo xalay markii ahayd 2 habeenimo ilaa hadda farxad ayaan ku jiraa marka xataa farxad darteed seexashadii xataa waan taan early macna inaan seexano on waxaa garoonka gudihiisa ku banaanbaxayay dadweyne fara badan oo waddankan u dhashay kuwaasoo aad u diidanaa amarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka ka soo baxay waxaanay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ku diidan yihiin siyaasadda Donald Trump iyo sidoo kale weero afka Carabiga ku qoran oo salaan iyo soo dhaweynba muujinayay. arrintaasi iyo go'aankii garyaqaanku uu qayb ahaan ku diiday amarka madaxweyne Trump oo iskaashaday ayaana horseed u noqday in qoyskani oo qarka u tagay inay sii kala irdoobaan ay dib isku helaan maadaama waddan xorriyad ka jirta uu yahay inaan hadduu hal qof wax sameeyo qalada inaan waddanka dhan isku raaci karin marka waxaan filayaa go'aan qof qalada ka soo baxay inaysan dad kala fara badan inay ku raacayn marka waxaan aaminsanahay waddanku inuu yahay waddan ammaan ah oo aan ku sugannahay. carruurta oo da'doodu 7 iyo 8 jir ay kala tahay iyo weliba hooyadood waxa ay si lamid ah aabahood ugu riyaaqsanayeen la kulanka iyo la midowgiisa maadaama iyagoo aanan waxba kala sooci karin ay aragtidiisu ugu dambaysay. farxad baan dareemayaa. dadka boqolaalka ah ee ku banaanbaxayay gudaha garoonka Dallas ee magaalada tan Washington oo qofkii soo degaba aad ugu farxayay waxa ay qaylada soo dhaweynta ah ee cirka ku sii shareerayeen marka ay arkaan qof madow amaba dhiig carbeed leh oo loo ogolaaday inuu dalka soo galo.